Doorashada qofka aad la saaxiibayso waa xirfad mudan in laga hormariyo fahamka shakhsiga aad la saaxiibayso. Waa muhiim qofka aad la saaxiibayso heesaawo la wadaagayso amaba aad soo dhawaysanayso inuu ahaado mid aan qalbigaaga iyo shakhsiyadaada midna waxba u dhimin. Haddaba halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa dadka aan mudnayn in lala saaxiibo amaba la soo dhawaysto. Abidka ha la saaxiibin dadka noocan ah kana fogo meesha ay joogaan. Kow, dadka ku yasa iyagoo iska dhigaya kuwa wax kuu sheegaya oo kuu nasteexaynaya. Dadkaasi waxay wax u dhimayaan farxadaada iyo dadaalkaaga sababtoo ah guul kastoo aad gaadho dhaliil ayay u sameynayaan. Laba, si fudud maya uma yidhaahdaan. Dadka wax walba oo loo soo bandhiga qaatay in waxba aan diidinay waa dadka inta badan ugu liita, waana dadka lagu gooro xataa waxa suuragal ah inuu cadawgaagu kuu soo adeegto. Dadka guushaada ka hinaasa. Dadka marka aad guulaysato ka hinaasa aan kula farxin lama soo dhawayso, waayo hinaasahaasi wuxuu horseedi karaa cadowtinimo inay kuu qaadaan. Afar, qofka dadka beenta u sheega adiga oo la jooga. Qofka beenta dadka u sheega adiga oo la jooga amaba waala isagoo ka xaraabaysanaya, qofkaasi aakhirka adiga ayuu been kuu sheegi doonaa oo uu ku waali doonaa. Shan, qofka xanta badan. Qofka aad aragtay isagoo mar walba dadka xamanaya oo qof walba intiisa kuu sheegaya ma mudna inaad sirtaada la wadaagto sababtoo ah qofkaasi markaad ka tagto qofka uu intiisa sheegaya ceebihiisa waa adiga. Lix, qofka ku farxa guuldarradaada. Marka aad hawl ku guuldarraysato, qofka reereen ka qaada ee ku farxa waxa uu neceb yahay guushaada waxa uuna kuu sheegaa inuu garanayo sida aad ugu guuldarraysanayso hawshan isagoo niyadda kaa dilaya doonayana inaad mar labaad ku noqon. Barnaamijkeenu maanta halkaas ayuu inoogu eeg yahay. Inta aan mid labaad ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.